kala kulantay garoonka diyaaradaha la saameeyay markaas ay ka soo degtay gaab wax looga sheegay الحمد لله رب العالمين أنا شري واحد كلاكم يحدان سؤال السكة من وجه ويرو ربورك تشوف أسعانات عن كلاكم حمينا أظفر بدن ونيسن يقع مفر اليسود وهي هذا هو مهلا غير أيام الله وأنا ما هسيه إمس هاد كم غنيت وقتك يعني كان على البال هذا واحد كم غنى قبل كان دو لح بلوضة مدة واحد مغلينا تكتي أمريكا الدول سيد أستراليا كندا أمريكا يمالك لا بل جودهن صعدنا بس ما حيكون صعب سنة هذا هذان هو سوكو أنا هو هالك المركي أنا كتير ودنا عرفت وسيم مريسنا مرات كوكله وحنو قد بوضع أستراليا اللي هذو الحرام بتشولي وحن كل شيء نود أمريكا لله كندا أي أمريكا كان يقولون بدو ولا بعض كمر مري هذان هو سوكو أنا هو أنا هاي اسم صعد بدن أوريجه مركا على شو قتشايلها دبده وحن وكيلك هاي تدوينها جودها مركا هلك شو قال وحن وكيلك هاي شايلها دبده واضح صعد هاي ويا صار ولا بديه وتكيه هو يراح مراح تعطيه أيه طبعا واحد في العالم اللي بح انتبه ليش أنت المريض هو شو يقول يدا قاري بوجهه بلاد نقول تدكي ترسل دجاجنا ده سكون قلنا يقول هان سومالي ودمنا جوكتي أعتقد كنا غلطة waxaan idin sheegayaa bismillaahi kariim intii aad maray dadka ku nool oo Soomaaliyeed guud ahaan waa nin iyo waayay horta oo dee lama oran karo dadka dhani ama wada wanaagsan ama wada dhiban yahay waxa weeye nin iyo waayay ayaa arintaas ku dhantahay waxaan se u badinayaa inay u badnaayeen dadku in wanaagsan oo maaragtay iska dadaalaysa oo dalkooda iyo deegaankooda hooyana ka fakaraysa iyaguna meesha ku nool yihiin sida ugu noolaa lahaayeen ka fakaraya ayay u badnaayeen dadweynaha Soomaaliyeed meelahan jooga meesha aan marayay baan ku arkay gaar ahaan dadka maaragtay u dhashay goboladan hadda Soomaaliya Sanaag iyo Hawd waqti aan hadda in dhow dibadda loo baxay runtii hadda bay iran iyo dadaal badnaayeen inay iyo wanaagsaneen ilaa kaliya marka waxaan ku kaaga sheegaa guud ahaan waa wanaag iyo dadaal iyo dalkeedu hooyo oo nin waliba iyo gabar waliba ay needa ku hayso sida ay u soo noqon lahayd ama ugu tabcaan lahayd ama ugu qabsan lahayd waxaan bilaabayaa warbixintii aan ugu talagalay inaan qeybada ku gudbiyo ugu horeyn waxaan u soo gudbinayaa dadweynaha u dhashay saddexda gobol aan sheegay Soomaaliya Sanaag iyo Hawd salaam ballaaran oo kaliya laaba oo aan uga wado jaaliyada u dhalatay saddexda gobol oo dibadda ku nool gaar ahaan North America salaataasi waa tii islaamka waa tu ay la socoto sukaynimo iyo niyasami salaata horta waa iga gudboonaysaan waan u gudbinaysaan deegaanada aan sheegay dadka u dhashay insha Allah hadaatiin qoladii ka wakiilka ah idaacadda insha Allah waxaan intaa weheliyo aan ku darayaa bismillaahi kariim dhawaasi aad maqasheen waxaa ka dhacay shir weyn oo muddo laga shaqaynayay sanada oo caam ah oo in la isugu yimaado gobolka ahaado oo Mareykan ka mid ah shirka ujeedadiisuna waxay ahayd sidii dadka u dhashay saddexda gobol oo ku nool dibadda oo jaaliyada dibadda inoo degana ay iyagu deegaanadoodii iyo dadkoodii wax ugu qaban lahaayeen oo wax horumar ah ay xil isaga saari lahaayeen ayay ahayd ujeedada weyn oo shirarkaasi u socdeen ama wararka waana dadaalay niyaa la isula yimid waxaa la isweydiiyey maxaynu qaban karaa waxaa la iska waraystay deegaanadeennii maxaa ka jira maxaa war laga hayaa waxaa la sheegay deegaanadeennii inay ka jiraan dhibaatooyin aan ka jirin gobollada kale oo Soomaaliyeed qaar ka mid ah maxay yihiin arrimahaasi dhibtaasi maxay tahay waxay tahay gobollada hadda aan soo sheegay oo saddexda ah oo Soomaaliya Sanaag iyo Hawd waxaa la yidhi nabadgelyadoodu ma xasilana oo markii aan is waraysanay oo xoogaa la noqday nabadgelyadu ma xasiloona waxaa kaloo la yidhi maamul kuna kama socdo oo maalin sidii la rabay maamul uga socdaa ma jiro
sidaa darteed dee wixii aynu qaban lahaynba dhibaata hor taagan mar haddii nabadgelyadii iyo maamulkii baa dhaliil ku jiro maxaynu yeellaa xagee ka bilownaa waxqabashadeedii ayaa la isweydiiyey shirka waxaa ka soo qayb galay dad ilaa 200 iyo siyaada ah oo ka socda gobollada ka socda gobol walba laga soo diray dad gobolka matalaya waxaa la yidhi inagu hadda ma samayn karno maamul lama samayn karno nabadgelyo wax kama qaban karno laakiin maxaa ugu habboon oo aynu ka caawin karaa dadkeennii iyo deegaanadeennii lambarka koowaad waxaa laga dhigay aynu ka caawinno lambarka koowaad waxbarashada maxaa yeelay carruur dhalinyara waddankii joogta waxbarasha ma jirto taasina waa dhaawaca weyn oo ina haysta weyn oo dee hadday taa kusii socoto khasaaro badan baa dhacaya oo la gaaraya waxaa jirta haddaan yar soo qaato maamaha dawladda shiinahu ay samaysay baa jirta oo qoraal ay ka dhigtay waxay tahay maamahdaasi haddii aad doonayso qorshe inaad samayso sanada qorshe sanadeed haddaad tacdo inaad samayso oo nolosha ku saabsan bariis beer baa le bariis waa inaad bariis beerata haya bariisku dhowr bilood buu ku go'a markaas kadibna waa ruqnaadi haddii aad damacdo qorshe 10 sannadood inaad samaysana geedweynaha beer baa le liinta cambaha iyo geedweynaha beer baa le haddii aad damacdo qorshe joogto ah inaad samayso oo nololeedna dadka waxbar baa le marka waxaanu lambarka koowaad loo soo qaatay in laga dhigo waxbarashada in dadki wax la baro taas baa looga faallooday xagee ka bilownaa baa korkaynu ka soo bilownaa mise hoosta markaa dadku dee qofa aragtida meel bay ka joogtaa dad baa waxay yidhahdeen aynu ka bilowno jaamacadda inaynu dhiso gobollada weliba jaamacaddaasoo laga dhiso magaalada laascaanood university laascaanood taas aynu ka bilowno dadaalkeena markii ra'yigii la isdhaafsaday waxbarashada in laga bilaabo waxqabashadii laisku raacay waxaa soo baxday oo jaamacad haddaynu maanta dhisno dadkii dhiganayay maba jiraan dadkii dhiganayay uma diyaarsana marka waxaa la isku raacay aynu gunta ka bilowno gunta waxbarashadii aynu awoodda kora siino laakiin gunta aynu ka bilowno kaas baa la go-aansaday waxaana la yidhi muddo sanada shirka maalintaa loo fadhiyay ohaayo muddo sanada awooddeena iyo dadaalkeenna waxaynu gelaynaa dhaqaale waxaynu soo saaro waxbarashadaynu gelinayna sanadkaas maalinteeda ama bisheeda marka la gaadho waxaynu isugu imaanayno lambarkii labaad aynu ku xijin lahayn ayaynu markaana ka tashan doonaa ama ka sheekaysan doonaa odtaladeeda siman guddi baa la magacaabay ilaa 13 ka kooban xubnood guddidaa waxaa la yidhi dee idinkaa maamulka inoo wadaya idinkaa gudaha la xidhiidhaya idinkaa hawlaha inoo wadaya mas-uul ah waxaadna soo diyaarisaan sanadkaas shirka dambe wixii aynu golaha keeni lahaydeen oo ah maxaynu ku xijinaa lamarka labaad ka dhignaa waxbarashada ka dambeeya kollay hadalladii markaas laga teliyey ama la soo qaaday oo qodobkaa marka u horeysaba dhaliilku ka muuqday oo xagga waxbarashada xagga maamulka iyo nabadgelyada taana waxaa lagama maarmaana oo aniga lafteeda maaragtay xilgaana laga soo saaray maadaama aan odayaasha gobollada ka mid ahay waxaa la yidhi dadka gobollada u dhashay waxaanu jecel lahay inaad kulantaan isweydiisaan oo hawsha inta idinku habboon aad qabsataan dadka gudaha haddaad tihiin oo nabadgelyada iyo maamul uu jiro haddii aad rabtaan jaaliyada dibaddu inay idin caawiso dhinac walba idinka caawiso qodobkaas waa shuruud laga soo dhiibay maadaama qoladiidii warbaahintu jihaatiin qolada dadweynaha gaadhsiin karta warbixinta iyo odayaashii iyo isimadii iyo maaragtay siyaasiyiintiina insha allah waanu kulmi doonaa wixii maaragtay wararaho iyaga u gaarana waa siin doonaa insha allahu tacaala wixii dadweynaha aan ugu talagalayna dee intaasaan kusoo koobayaa waa mahadsanti ma jirin miyaa qorshaha in idaacadda laascaanood ay jaaliyaddu soo caawiso waa ku jirtay qorshaha jaaliyaddu inay adeecaddaas waa la maqlay in dadaal badan halkaad ka samayseen adeecadduna hadda ay ka socotoba gobollada laga dhegaysto marka waa la isku boorriyey in adeecaddaa wixii la qaban karo la taageero waxaa la jirtay nin golihii keenayoo siday adeecadahan bahalahan aad ku sawiraysaan kuwa waaweyna oo yidhi waxaan usoo talagalay adeecadda laascaanood ka baxda waxaana aada loo boorriyey oo la yidhi adeecaddaas sidii ay horu socon lahayd oo adeecadaha caalamka kale ay uga mid noqon lahayd oo in taageero buuxdo la siiyaa arrintaa waa la soo dhaweeyey waana la qiimeeyey waxayna ka mid ahayd waxyaalihii loogu talagalay in dii horumar loo sameeyo
ay ku jirto. ugu dambeyntii ma jirtaa waxaad jeceshahay inaad aan ka gaarsiino dadweynaha waxaa laga gaarsiinaysaan salaan kal iyo laaba oo ra'yigayga iyo ra'yiga dadweynaha jaaliyadda dibadda jirta oo u dhalatay gobollada saddexda ah oo aan ka wakiilahay iguna soo aaminay inaan isoo gaarsiiyo salaantoodii sokeeyanimo waxaan haddaba dadweynaha u gudbinayaa waad salaaman tihiin salaanta aan idin xabaarsanaadoo ka socotay jaaliyadaha dibaddan iga guddooma sida gaar ahaanna iga guddooma idinkana waxaad i leedahay isku tiirsanaada oo ha kala tegina waxaan idinku darayaa oo intaa ii wehelisa ha isxaasidina rag isxaasida isma xabaale ha isdamaaciyina rag isdamaaciya way isdilaayeen ha isqadinina rag isqadiyey isuma qayla roore intaas baan waana idinku daray waxaan kaloo idinku khatimayaa naftayda iyo tiinaba ku boorinayaa cabsida ilaahay iyo cibaadadiisa oo loo dadaalo asalaamu calaykum waraxmatullah calaykum asalaam waraxmatullah kaasi waa garaad cali ibraahim xasan oo shalay ka yimid Kanada oo maanta aan ku wareysanay gurigiisa